السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan saaxiibayaal soo dhawaada. waxaynu guud mar yaro kooban ku samayn doonaa buugga Die Empty dhima adiga oo maran ee uu qoray Tyler Herry ee uu turjumay Aadan Sahan. qoraaga Tyler Herry waa qoraa iyo dhiirigeliye reer Mareykan, waana aasaasaha mu'asasada The Accidental Creative, sida oo kale waa daadihiye podcast-ka The Daily Creative. Herry waxa uu qoray buugaag badan oo ay ka mid yihiin kanaynu maanta gacanta ku hayno Die Empty iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin The Accidental Creative, The Motion Code iyo kuwa kale oo badan. Dhiganahan intaan bilowgaba loo dhaadhicin nuxurka hoose ee cutubyada waxa uu qoraagu ugu horreysiinayaa oo uu ku xusayaa afeef kooban ujeedada ka dambaysta qoriska buuggan iyo qiraal uu samaynayo qisooyinka keenay inuu qoro iyo macnaha Die Empty ee loo fahmi karo iyo Die Empty-ga uu u jeedo ee ugu talagalay buugga. Buuggan waxa uu ka kooban yahay 12 cutub oo 3 waaxood loo kala jebin karo. 3 cutub ee ugu horeeya waxay ka hadlayaan dabeecadda horseedka, muhiimadda shaqada, iyo sababta dad badan oo maskax badani ama hiboolayaal ahi noloshooda ay ku soo afmeeranto in ay qabtaan wixii ugu yaraa ee ay karayeen. Cutubka 4 ilaa cutubka 10 waxay akhristaha la wadaagayaan mabda'yada cayiman ee ka caawinaya inuu dhiso hab fikir iyo inuu helo hab uu caynaanka ugu sii dayn karo waxqabadyadiisa ugu mudan ee gudihiisa ku dhex xidhan. 2 cutub ee ugu dambeeyana waxaynu ku soo bandhigaynaa istiraatiijiyado aad ku dhaqan gelin karaysid mabda'yada adigoo ku dhex tolaya nolol maalmeedkaaga si aad u gaadhid una daahfaydid la falgal qoto dheer oo kuu keenaya inaad horu socod yeelatid iyo in ujeedka noloshaada aad gaadhid. Waxaa jira dad badan oo siday u halgamayaan ka horeeya deadline-ka ama siday u eryanayaan dalacsiinka dhanka shaqada ah ugu dambayntana ku lumin kara maalin maalmaha ka mid ah inay soo toosaan oo isweydiin kara anigu yaan ahay, sideen halkan ku soo gaadhay, iyo sidee baan u noqon karaa ama u sixi karaa wixii istaagay. qaabka qudhee looga fogaan karo arrintan oo kale inay kugu dhacdo waa inaad aruurtid habraac kugu ilaalinaya inaad ku toosnaatid ka aad jeexatay, daacadna aad u ahaatid hadafka aad leedahay. ujeeddada buugga nuxurkiisu waa maalgashiga qaab fikirka iyo inaad ka dhex heshid habraacyada aad u baahan tahay si waxa ugu wanaagsaneed aad haysato maalin walba aad caynaanka ugu sii dayso. sida oo kale waxa uu daaran yahay yaraynta qoomamada iman lahayd markaad noloshaadu gabagabada gaadho ee aad ka murugeynaysay qaabkii aad u soo guudatay tagtadaadii iyo sidii aad uga faa'iidaysan weyday maalmihii aad noolayd. haddiiba uu jiro ujeeddo dahsoon oo buuggani xambaarsan yahay, waa inuu inagu soo biiriyo aragti nooc cusub ah, inaynu inagu beero dareen ah inay jirto sabab dabada inagaga riixaysa oo keensanaysa in aynu barano qaabkaynu la dhaqmano shaqadeenna maalinlaha ah iyo dhammaanba nolosheenna oo dhanba. cutubka 1 Die Empty. ha dhiman adigoo ay kaa dhex buuxaan ama weli sita waxqabadyadaadii ugu wanaagsanaa. waa halkee dhulka ugu hodansan ama ugu qiimaha badan caalamku? dhulka ugu qiimaha sarreeya caalamku waa qubuuraha, waayo waxaa ku aasan xabaalaha kumanaan waxqabad oo dadkii ku dhex jireen soo saari waayeen oo la dhintay. waxaa ku jira sheekafaneedyadii aan weli la qorin, ganacsiyo aan la hirgelin, xidhiidho la bilaabi waayey ama wanaag ku dhammaaday, iyo waxqabad kasta oo qof is yidhi berri baad qaban doontaa, maalin baad samayn doontaa, laakiin berridii ay sugayeen ay iman weyday ama iska ilaaweenba. su-aashaa saaxiibkay i weydiiyey ayaa keentay inaan notebook-gayga ku qoro 2 eray oo ah Die Empty. haddii aad caawa seexatid dabeedna aad beri soo toosi weydid, waa inaad ladid adigoo og in wixii kugu dhex jirayba aad dibadda soo dhigtay, adigoo iska qoomamayn sida aad wakhtigaaga iyo tamartaada u bixisay. dhimo adiga oo madhan. macnaheedu waa maxay? Herry waxa uu qaybtan ku kala caddaynayaa weedha Die Empty, macnaha uuga socdo iyo sida qaldan ee loo fahmi karayo. maxaanay ahayn lama xidhiidho in wax walba aad maanta dhammaystirto. waxaa jira kelmad Jabaaniisa oo la yidhaahdo karoshi, kaas oo macnihiisu yahay in daalka shaqada dartii loo dhinto. markaa Die Empty ugama jeedo inaad dayacdo dhinacyada kale ee noloshaada oo aad xoogga saarto meelmarinta shaqada. in shaqada sidaas iimaanka la iskaga qaadaana waxa ay keentaa badanka natiijo cagsi ah. taas beddelkeeda
weedhani waxa ay tibaaxaysaa inaad yeelatid horusocod joogto ah oo aad sugan oo aad ku wado maalin walba mashaariicda muhiimka ku ah oo aad noloshaada oo dhan wadid. Lama xidhiidho in aad u noolaato sidii inaanay jirin berri. Fursadaha waxaa ku lamaan mar walba mas'uuliyad, kuwaas oo ay waajib tahay in la isku dheeli tiro nolosha si loo noolaado nolol caadi ah. Haddii aad meysatid maanta fursadda aad isbeddel ku samayn karto adigoo shaqadaada u sii maraya, waa inaad si dhow ula socotaa ama aad saadaalin ku samayn karaysaa natiijooyinka ficiladaada maanta iyo berri. Lama xidhiidho inaad xiisahaaga daba gasho haddii aad shaqaale tahay, isla markaana himilo aad rabtid gaadhitaankeedu ay jirto. Waxa ugu horreeya ay waajib kaa saaran yahay ay tahay himiladaada inaad gaadhid, xirfadahaaga korisid, khibradahaaga dadka aad dheer tahayna aad uga faa'iidayso. Marka xigtana ay waajib kaa saaran yahay in aad gudatid mas'uuliyadaha ku saaran ee dadka lacagta ku siiya ay kaa filayaan ama in ay kaa helaan. Labadaas dhinac ayaa lagaa doonayaa in aad isku miisaantid. Haddii xiisahaaga aad raacidna waxa aad meel kaga dhacaysaa xaqa dadka aad la shaqaysid. Lama xidhiidho in aad ka tagtid nasashada, madadaalada. Xidhiidhada muhiimka kuwa maxay tahay? Waxay la xidhiidhaa in wakhtiga kooban ee aynu adduunkan haysanno aynu u adeegsano qaab wax ku ool ah, in aynu ka baxno ismoodsiiska beenta ah ee ina leh mar walba waxaynu haysanaa berri aynu shaqadeenna ku qabsanno, waayo qofka waxay u keenaysaa tamar darro, howlgab ka dhigaysa. Aakhirka waa inaynu shaqadeenna maanta kula noolaanaa dareen ah inaanu wakhtigu ina sugayn, hawl maanta ku taalana berri looma hakiyo. Waxa ay daaran tahay inaynu ogaano inaynu leenahay horseed inoo gaara. Waa horseed qofka keliyata ee soo bandhigi karaya uu adiga yahay, qofka keliya samayn karana uu adiga uun yahay. Mana jiro qof aan adiga ahayn oo samayn kara. Horseedkaasi waa xirfadaadii iyo khibrad gooni ku ah adiga kuu qoran, taas oo haddii aad iska soo saari weydo hadhow ay kugu badan doonto su'aasha ah haddii. Waxay daaran tahay inaad ka fogaatid raaxa jacaylka, hadda ma aha nasashada, waayo raaxadu waxay halis ku tahay wax soo saarka iyo kobaca. Waxay daaran tahay inaad mowqif ka yeelatid oo aanad ka weecweecan. Waxay daaran tahay inaad iniinyaha u aasto si aad berri u goosatid, waayo kobaca maalin qura laguma samayn karo ee waa natiijada ka dhalata tallaabooyin yaryar oo loo qaaday dhanka saxda ah maalin kasta. Cutubka 2, horseedkaaga. Muuqaalka guud ee shaqadu waa inuu ka turjumaa waxa muhiimka ku ah. Sheekada Steve Jobs, aroor kasta ayuu muraayadda hor istaagaa, waxaanu isweydiiyaa, maanta haddii ay tahay maalintii noloshaada ugu dambeysay, waxa aan isleeyahay qabo miyaan sii qaban lahaa? Horseed. Inta lagu guda jiro buuggan loogama jeedo oo keliya shaqada aad mushaarka ku qaadanaysid, se waa qaab kasta oo aad wax qiimi leh oo aan hore u jirin aad ku soo biirin karto caalamka adigoo adeegsanaya ilaha awoodeed ee aad haysatid ama aad leedahay. Waxa ay waxqabadyadaasi ka koobnaanayaan shaqo kasta oo aad samaynaysid iyo mashruuc kasta oo aad qayb ka tahay. Shaqada wax ku oolka waxa hela dadka joogtada ah ee dadaalkooga joogteeya, horusocodka maalinkoodana ku qaata. Horusocodku waa inaad ka faa'iidaysato ilaha tamartaada sida focus, time, energy oo hiigsigaaga ku dhaweynayana aad uga faa'iidaysato. Dadaalkuna waa saafiyad, xirfadahaaga shaqadana aad u qabato qaab aanad ka qoomamayn doonin. Way fududahay inaad ku dhacdid dabinka heehaabashada oo ah inaad maalin kasta samaysid waxa fudud ee aad raaxada ku dareemayso. Sida oo kale way fududahay inaad ku dhacdid dabinka shaqada aan jihada lahayn, taasoo iyaduna heehaabashadii uun soo hoosgelaysa. Waxa aad u baahan tahay inaad kala ogaatid saddexda nooc ee shaqada si aanay midina kaaga dayacmin. Saddexda nooc ee shaqada, inkastoo ay shaqadu mararka qaar u ekaan karto hawlo fara badan oo isku wada dhex jira iskuna qasan, haddana sidaas ma aha arrintu, ee waxaa loo qaybin karayaa 3 nooc oo kala ah: fikir, maabin, fulin, maakin, iyo falgal, meeshin. Maabin waa fikirka iyo qorshaynta hawlaha ama horseedka. Maakin waa qabashada shaqada iyo soo saarista horseedka qiimiga leh. Maakin waa walk between the walk,
waana korinta xirfadaada ama barashada qaab cusub oo aad shaqadaada u sii horumarin karaysid. waa kobcinta aqoontaada iyo inaad faduushaada naaxisid. saddexdaa nooc ama saddexdaa curiye marka la isku daro waxaa soo baxa 4 shakhsiyadood oo kala ah: horumariye, hage, isbiimeeye iyo riyo ku nool. cutubka saddexaad, nolosha caadiga ah. dadka u badheedha inay heerka ugu fog ee suuraha gaadhaan oo keliya ayaa daahfayda ilaa heerkay suuraha tahay inuu qofku gaadho. nolosha caadiga si kedisa ah kuma timaado ee waqtiga ayay si aayar ah ula kortaa. nolosha caadiga ah mar walba kama dhigna in aad liidatid ama howlqabadkaagu hooseeyo. waa iska fadhiisi, isdhiibid iyo in aad meel ku nagaato. waa in adiga oo jidkaas qorfaha ah fananaya oo doonaya in aad fiiqa sare gaadhid aad bartamaha iskaga nagaatid. dhinaca xun ee shaqada, qofna ma qorshaysto nolol caadi ah. waxa aynu soo ogaanay in shaqadu 3 nooc tahay. si aad nolosha caadiga uga baxdidna waxa aad u baahan tahay inaad 3 nooc ee shaqada horumarin joogto ah aad ku samaysid. haddaba waxaa jira 7 qodob oo qofka ku keena inuu dayaco shaqooyinkiisa, sidaas darteedna nolol caadi ah horusocod lahayn ku jiro. 7daas qodob waxa uu qoraagu u bixiyay 7 dambi ee nolosha caadiga ah. si loo xasuustana waxa uu u soo gaabiyay A, B, C, D, E, F, G. ujeedda la'aan. baahitaanka macnihiisu waa in aad ka maran tahay hadaf xadidan. xaalkiisuna waxa weeye in loolada aad gelaysid aad ujeedda cayiman ku leeyihiin oo aanad iska gelin dagaal iyo halgan aanad garanayn hadafkiisa. qodobka labaad, caajiska. caajisku sidiisaba ma wada xuma, waayo waxyaabaha laga rabo faa'iidada leh badankoodu marka la dhisayo ama la baranayo waxaa caajis iyo xamaasad badan ma wada laha. waxa uun qaabkay dadku uga falceliyaan uun. qaabka aynu caajiska ula dhaqanno ayaa kala sheegaya inuu noqdo mid faa'iido dhala ama inuu noqdo mid khasaare iyo fadhiidnimo dhala. dhibaatada dadka badankooda heshaa waxa weeye in ay ka cararaan waxyaabaha caajiska ah halkii ay u adeegsan lahaayeen caajiska si ay u kobcaan. dhaqanka noocaasa waxa xal u ah in aad si ku talagal ah u qabatid howlahaaga adiga oo markasta ku eegaya nolosha ilfaduuli ah. qodobka saddexaad, raaxada. raaxa jacaylku waa cadowga ugu weyn ee maamusnida. raaxa jacaylku waxa uu dilayaa natiijadii wacnayd ee aad mustaqbalka heli lahayd. si waxa aad heshid nafisaas yar oo ku meel gaadh ah, xalkiisu waxa weeye in aad laasimto korriin joogtaha caadana aad ka dhigato in laga baxo aagga nafiska ah ee raaxa jacaylka ah. qodobka afraad, dhalanteed. humaaga dhabta ahayni waa aaminaad aan run ahayn oo la rumaysto. si xirfadaada aqoontaada aad u korisidna waa in aad dareen abuurtid, dareen iska warhayn ah. waa in aad taqaanid una fiirsatid galdaloolooyinkaaga iyo qodobada aad ku fiican tahay. dabeetana waa in aad howlgashaa halka aad ka jilicsan tahay. xalku waa in aad iska warhaysid, isku fiirsatid iyo in aad naftaada been ka sheegin. qodobka shanaad, qabka. qabku waa dareen sun ku ah horusocodka, waayo waxa uu keeni karaa inuu qofku ka carro guuldarrada si uuna u dareemin inuu fashilmay. xalkiisu waxa weeye in aad waxbarasho joogto ah ku jirtid oo aad ogaatid in fashilku ahayn ujeeddada kama dambaysta ee uu noqdo tijaabo aad wax ku barato halkii uu noqon lahaa tijaabo khashilaad ku dareensiisa. qodobka 6aad, cabsida. cabsidu waa dareen mala awaal ah oo maskaxdeennu adeegsato si ay u difaacdo. difaacaas ay galaysnaana waxa uu inagu noqonayaa katiinada inoo diidaysa in aynu wax cusub samayno. xalka cabsidu waa in aynu qaab qorshaysan isla markaana hadafkiisu yahay inaynu nafteenna barno dhaqanka u badheedhidda halista, waayo geesinimadu ma aha in aan la baqin ee waa in marka baqashada la joogo aad u badheedhid. qodobka 7aad, digtooni. digtoonidu waa wax ku yimaada dadka dadaala qaar ka mid ah, waana in howlaha kale oo dhan faraha uu ka qaado qofku shaqadiisa si uu u meel mariyo. waxay u keeni kartaa qofku inuu faquuqmo oo bulshadii ka dhex baxo, xidhiidhadiisuna ay burburaan. xalka digtoonidu waxa weeye in aad dhisto nidaam dib u qiimeyneyd oo aad hadba dib ugu eegto xidhiidhada dadka kala dhexeeya. hadbana aad dib u qiimeyn ku samaysid, aad dib u eegtid, dayactirna aad ku samaysid
intaanay xeedhiyo fandhaal kala dhicin. Cutubka afraad, xadid halganadaada. Si aad uga hortagto inaad hiigsigaaga ka leexleexatid, waa inaad si xikmad leh loolanada noloshaada aad u dhisto qaab aad iyaga guul uga gaadhi karto. Xadid marinka noloshaada. Marinka guud ee noloshaadu waa mowduuca aas-aasiga ah ee noloshaada iyo shaqadaadaba. Waa isbeddelka aad doonayso inaad caalamka ka aragto marka aad halganto kadib. Ma aha macnaha marinkaagu in aad iska shaqaysid uun adigoo oon hadaf ka lahayn. Waa in aad si qeexan u socotid. Beeshin ama xamaasad. Waynu khalad adeegsanaa eray bixintan oo waxa aynu ku tilmaannaa in ay tahay wax kasta oo aynu danayn caadiga ka yara baxsan u hayno. Waxaynu u aragnaa sidii in ay tahay hawaraac iyo wax kasta oo aad doonaysid in aad samaysid. Hase ahaatee xaqiiqadu sidaa way ku duwan tahay. Asalka ereyga beeshin ama xamaasad waxa uu ka yimid erey laatiini ah oo baati ah, kadeed macnaha, ama xamilaad. Yacni nuxurka beeshinku waxa uu ka yimid waa dhibtood. Waa in aad isweydiisid, maxay tahay shaqada aad darteed u kadeedmi karaysaa? Waxqabadka ugu weyni waxa uu u baahan yahay in aad dhaafsatid dhibaato iyo adkaysi weyn. Xamaasadda ama kadeedka ugu weyn ee midho dhalka ah ee aynu adduunka wax kaga beddeli karnaa waa ka aad dadka kale u haysid ee daaran wax naftaada ka baxsan. Ubuucda loolanka. Waa muhiim inaad fahansan tahay garoonka aad ku ciyaaraysid, daraasadna aad ku sii samaysid halganada iyo mowduucyada aad mas-uulka ka tahay. Waayo ma jira ciidan dagaal aanu hore uga sii shixin. Cutubka inta hadhay waxa ay noqonaysaa su'aalo kaa caawinaya in aad daraasaysid loolanka aad gelaysid. Maanta maxaad diiradda saaraysaa? Maxaad si walba u diidaysaa inaad gorgortan ka geshid si kastoy kugu adag tahay? Maxaad og tahay inaad mahuraan kuu tahay in aad samaysid laakiin aad ka meermeeraysaa? Maxaad ku haminaysaa inaad dadka kale u qabatid? Ma jiraan xaalado dadka kale ku kalifa inay taageero kaa soo doontaan. Liis ku qor dhammaan arrimaha aad ka shaki qabto ee aad og tahay inay kula gudboon yihiin ka dhabayntoodu si aanad weli dhankooga tallaabo u qaadin. Cutubka shanaad, faduul saa'ida lahaw. Si aad uga hortagto in caajiska iyo isdhigashada dareenkaaga horumardoonka ah ay wiiqdo, waa in aad waxqabadyadaada ugu hawlgashaa caqliyad faduuli ah. Gebi ahaanba waxqabadyada maamuuska leh ee raadka iyo mudnaanta leh ee dunida saamaynta ku leh waxa ay ka bilaabmeen su'aal ah why, how iyo what. Markii jawaabtooda la baadhayna waxaa ka dhashay natiijooyinka aynu aragno. Si aad iskaga ilaalisid inay faduushaadu kaa dhimato, waxaad adeegsan karaysaa laba hab oo kala ah: in aad samaysatid hannaan waxaad ku soo dhiraandhiriso iyo inaad horumarisid fikirka filashadaada. Haddii aad doonayso arrin inuu u dhaco sida aad filanaysid, waa inaad u dejisaa nidaam. Waa in aad samayso xogaa faduuli ah oo haddana nidaam iyo waddo maraya. Istiraatiijiyadaha soo socda ayaa kaa caawin karaya in aad samaysid sidaa. Lahaw liis su'aalo ah. Waqti ku bixi kasalgaadhka su'aalahaaga. Tusaalaha ugu horreeya si aan ka leexleexasho lahayn u samee runta aad raaxada ku dareemaysid. Dhexdhexaadnimada. Dib u qeexidda dhibaatada. Si aad dhibta u xallisid, waa in aad si dhab ah u daahfaydaa dhibaatada. Waxaana jira 4 qodob oo kaa taageeraya. Sifooyinku waa himilooyinka iyo ujeeddada la doonayo in la gaadho. Isku ekaashaha aad ka dareento mashruuca aad ku hawlan tahay iyo inaad hore u qabatay ama qiimaysay. Suuraysiyadu waa arrimaha aad hore dhibta uga sii haysatay oo ah xuduudaha kaa hortaagan in aad dhaaftid dhibta. Sifooyinka waa sifooyinka gaarka ah ee ay dhibtani leedahay ama astaamaha kuu tilmaamaya. Cutubka 6, ka bax aagga raaxada. Si aad u samayso horseed qiimo leh, waa inaad caadaysataa dadaalka aad samaynaysaa hannaan kobcin iyo taabagelin u noqda xirfadahaaga inta aad nooshahay. Haddii aad doonayso in aad ka dheeraato arrimaha kuu horseedaya hanyarida iyo in aad nolosha caadiga ah ku qanacsanaato, mar unbaad ku khasbanaanaysaa in aad ka baxdo aagga raaxada aad ku dareemayso. Biology-ga raaxada. Noole ahaan waxa aynu si dabiici ah ugu janjeernaa dhanka raaxa raadinta iyo daalka cararka. Sidaa darteed waxa aynu si balaad la'aan ah oo aan soo jeedin u samaynaa
aagag aynu raaxo ka helayno oo aynaan culays ama dhibaato kala kulmayn. Istiidada maalinka u dambeeya sheekada ninka wariyaha ee kula soconaya maalinka oo dhan. Inta aynu ogaano in ficiladeena la diiwaan gelinaya waxay inoo horseedaysaa in aynu ka baxno deganaanta aynu raaxada ku dareemayno, waxaana ay inagu khasbaysaa in aynu samayno sida saxda aynu arkayno halkii aynu aynu iska aaminsannahay in aynu saxannahay. Kobaca lagu sheegaa waa ficilo si maalinle ah oo si miisaaman oo habaysan loo sameeyey. In fursadaha cusub qofku maya yidhaahdo waxaa keena kabaqitaanka dhibka, ilaashiga sumcadda, ceebka cararka, raaxa jacaylka, anaaniga. Kobac ku samayn mayno in aynu waxa laynaga filayo qabanno. Kobacu wuu dhib badan yahay, kala filiqsan yahay, nafisaadna laguma dareemo. Waxa uu dhacaa keliya marka aynu diyaarka u noqono aqbalaadda tijaabooyinka iyo loolanada cusub. Sugitaanku mararka qaar waa mahuraan, laakiin marar badan wuxuu noqon karaa caado iyo nooc tanaasula ama cudurdaarasho ah. Yaad ka sugaysaa in ay ku siiyaan ogolaashiha aad noloshaada iyo shaqadaada kaga hawlgeli lahayd tallaabo, gucle iyo orod. 4 waaxood waa inaad si joogto ah uga shaqaysid horumarintooda shaqadaada ama ganacsigaaga, caqligaaga, xidhiidhadaada, ruuxdaada. Xadid waxaad uga tanaasuli karto xaqiijinta hadafkaaga. Marba haddii wax walba aad u samayn karin, waa in waxyaabaha muhiimadda gaarka kuu leh aad sii doorataa. Cutubka 7 isbaro. Inaad isbarataa waxay kaa saacidaysaa inaad wajahdo humaaga beentaad iska aaminsan tahay. Waxay kugu hagaysaa waxqabadkaaga ugu wanaagsan ee aad ka dhabayn karto. U halgan sidii aad u baran lahayd, sidaad isu baran lahayd. Marka aad isbaratid, waxaad yeelanaysaa qaab cusub oo aad adduunka wax ku ool ugu soo biirin karto. Tilmaansa haliyadaada. Bara waxa aad ka baqdid, waxyaabaha aad u jandhiyid waa maxay, maxaad nolosha kugu cakira. Suuraysiyadaada cusboonaysi. Xadid aaminaadahaaga. Diyaarsa liis indhayn ah oo aad naftaada kula socotid isbeddelka ku yimaada suuraysiyadaada. Ku dadaal ogaanshaha aragtiyaha dadka kale. Qiyam yeelo. Dejisa xeer habdhaqan oo kuu gaara, ahmiyadna kuu leh. Cutubka 8 si kalsooni leh wax u qabatin. Kalsoonida iyo la qabsigu waxay kaa hor joogsadaan isjeclaanta shakhsiyadeed ee ka badbadiska ah, taas oo ka hortagi karta meelmarinta waxqabadyadaada ugu mudan. Inkasta oo isku kalsoonaanta badani ay mahuraan tahay guusha la raadinayo, ka badbadinta isjeclaanta ka badbadiska ahina ay horseedi karto in aad faraha ka qaaddo waxqabadyadaadii ugu wanaagsanaa. Haddii aad dareemi weydo in waxqabadyadaada qadarin weyn aanad ku mutaysanayn, qudhaada ayay kugu noqonaysaa dhibaato markaa kaa hor joogsata karaankaaga. Isjeclaanta ka badbadiska ah waxay kaa hor joogsanaysaa la qabsiga. Ha quudin anaaniyadda. Qodobada lagu quudiyo anaaniyadduna waa kuwan: ciyaarista doorka dhibanaha, jees-jeeska iyo ku talaxtagga is-adkaynta. In shaqada aad ku xukmisid ra'yiga dadka kale ee aanad ku xukmin muhiimadda ay leedahay. Suuraysiga wax walba adiga kula jaan qaadaya mar walba. Si saxa ayaan shaqada u qaban karaa, ma khaldami karo. Maxaan soo kordhin karaa haddii aan hadlo? U tanaasul istiraatiiji ah. Si fiican malaha uma sharixin. Guushaada mustaqbalka ha ku qiimayn guushaadii tagtadaadii. Si aad ula dagaalantid anaaniyadaada, dadka kale dhiirigeli. Samee wada hadal. Qor fiirooyin si aad u tijaabisid falanqaynta afargeesta ah. Cutubka 9 raadi codkaaga. Codkaagu waa waxa jaad gooniga ah ee aad ku soo kordhin karaysid horseed adiga kuu gaara. Codkaaga waa waxaad ka helaysid marka aad qaadid tallaabooyin yaryar oo istaba jooga, kuwaas oo aad u qaadaysid dhanka horumarka. Waa in aad halisaha xisaabtid marka aad tallaabooyin u qaadaysid ama u badheedhaysid. Baro qaab cusub oo aad shaqada caadiga ah ula falgelaysid. Raac fallaadhaha iyo tilmaamaha ay noloshu ku siinayso. Mararka qaar dareenkaaga saxnaanta kuu sheegaya raac. Marka hore ceeb kuma jirto inaad dadka kale kaga dayatid qaabkay u guulaysteen. Si qiimi kuu gaar ah iyo macno buuran ma samayso. Waa in aad u gudubtid marxaladda isbiimaynta oo aad tijaabiso in aad gaarkaaga wax u cabiri karaysid. Cutubka 10 joogtee xidhiidhadaada. Inaad xidhiidh qoto dheer la samayso dadka kale waxay kaa baajinaysaa in aad faquuqantid ama isku koobnaatid. Uma abuurin faquuqnaanta. Marka ay waayuhu inagu adkaadaan, waxa ugu xun ee aynu samaynaa waa inaynu dadka iska faquuqno. Goobta shaqada marka la joogo waxaa jira 2 nooc oo gefka sababa: qoomamada yaraanta iyo firfircoonida. Isu ururinta, iska indhatirka khilaafka. In la doodi waayaa waxa ay dhalaysaa in dhib ka badan
ta khilaafka laga filayay qudhiisi ay timaado. Waxaa jira fahan qaldan oo ah in degganaantu ay ka turjumayso badqab, laakiin kooxda mar walba xasilooni waxay muujinaysaa dhimasho hoose oo danayn la'aan ah. Dadka kale ka fikir, waa inaad xidhiidhadaada ula dhaqantaa mabda'a ah maxaan u soo biirin karaa, halkii aad ka fikir lahayd maxaad ka faa'iidaysaa uun. Raadso muraayad, siday muraayaddu muuqaalkaaga kuu tusayso ayay dadka kale noloshaada ku jiraana kuu tusi karaan heerka aad gaadhsiisan tahay iyo dhanka ay noloshaadu ay indhala'aanta kaga jirto. Cutubka 11aad. Noolow adiga oo madhan. Maalin walba, toddobaad walba iyo bil walba dib isu qiimee. 20 minit oo maalintaada ka mid ah iska soo jar si aad ugu qiimaysid 5 meelood oo muhiim ku ah. 1 anshaxa, 2 shaqada, 3 dadka, 4 hawlaha, 5 adiga. Shaqada dhabta ahi waa ficilada kuu horseedaya inaad caalamka wax uun ku soo biiriso. Cutubka 12aad. Horu socod. Ma gaadhi kartid abbaartaada haddii aanad faham fiican ka haysanin halka aad hadda taagan tahay. Ma raaci kartid khariirad qof kale leeyahay, waayo qofkaasi jid gooniya ayuu marayaa. Waa macquul in meelaha qaar aad iskaga ekaataan, haddana ugu dambaynta qorshe 2 qof isku si uguma shaqayn karayaan. Waa dhif. Samayso khariirad kuu gaar ah adiga. Marka qorshe la doonayo in uu dhaqan galo, waa in qofka qaadaya uu horu socodka noloshiisa uu si waafaqsan uga turjumaa. Xaqiiqada qadhaadhi waa inaanay jirin guul joogto ah oo la filan karo oo si dhammaystiran uga madhan suuragalnimada fashil ku yimaada. Maxay noloshu kaa filaysaa? Jooji rabitaanka ah inaad qof sheegan noqoto oo noqo qof sheegan. Saaxiibayaal, halkaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa buugga Dhima Adiga oo Madhan. Haddii aad wuxuu naga faa'iiday, nagu soo biir insha Allah. Buugaag dambana oo kan ka sii qurux badanna soo koobis bayn ku samayn doonaa haddii Alla yidhaahdo. Wa salaamantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.